Prepositions meeleeye. Prepositions macnaheedu ah meeleeye. Hadday jumlad hagaajin rabtid meeleeye la'aan ma shaqaynayso jumladaas. Sida for example, the girl is under the table. The girl haddaa dhahdid the table aa dhahdid jumlad kaamila mooho. Gabadha miiska hoostiisa ayay ku jirtaa. The girl is under the table. Gabadha miiska hoostiisa ayay ku jirtaa. waa inoo casharkeena 44aad lesson 44. Behind gadaal. Gadaal waa behind. Behind waa gadaal. Marka prepositions ayaa badan tan meeleeyaha prepositions of place ayaa la dhahaa. Sorry, prepositions of place waa meeleeye. Behind waa gadaal. She is behind the 4 boxes. Afarta kartoomood gadaashooda ayay joogtaa ama dhabarkooda dambe. Hoos, below. Hoos, below. Below waa hoos. Agaal, below a box with a pumpkin. Gabar kartoon hoos taagan oo bocor hayso. Gabar kartoon hoos taagan oo bocor hayso. A girl below a box with a pumpkin. Pumpkin waa bocor. Across, dhinaca kale. Across, ka gudbid ama dhinaca kale waaye. Across the road haddii lagu dhaho dhinaca kale ee laamiga camal waaye. Kartoomada ayay dhinaca kale uga gudbaysaa. She is walking across the boxes. She is walking across the boxes. Kartoomada ayay dhinaca kale uga gudbaysaa. Walking waa ficil hadda dhacayo. Tenses hore ayaan isku soo barnay. Hal part ayaan soo geliyay. Dadka maxaa arkay inay ka rajiifteen. Markaas ayaan part-ka labaad dib u dhigay. Over, dusheeda. Over, dusheeda ama dushiisa. Gabar qurux badan ayaa miiska saaran. Gabar qurux badan ayaa miiska dushiisa saaran. A beautiful girl is above the table. A beautiful girl is over the table. Dushiisa ama dusheeda ayaa over eh. Gudaha, into. Gudaha, into waa gudaha. Waxay gudaha u galaysaa kartoomada. kartoonka waxay gudaha u galaysaa kartoonka. Markuu kartoon yahay box waa hal, markuu yahay waa box, markay badan yihiin waa boxes. She is going into the box. She is going into the box. Gudaha, inside. Inside, gudaha. Gabar qurux badan ayaa kartoonka dhexdiisa ku jirto. Dhexda ama gudaha wixii aad dhahdid. A lovely girl is inside the box. Lovely, beautiful, pretty waa isku mid, waa qurux. Gabar qurux badan ayaa ku jirto kartoonka dhexdiisa ama gudihiisa. Outside, banaanka. Outside, banaanka. Banaanka. Outside, banaanka ama dibadda waxaa dhahdidba. Waxay joogtaa kartoonka banaankiisa. She is outside of the box. She is outside of the box. Waxay joogtaa ama ay taagan tahay ama ay tahay kartoonka banaankiisa ama boxyada banaankooda wixii aad dhahdidba. In, ayadana waa gudaha. Inside, in waa gudaha ayaa laga wadaa. Gabadhu waxay ku jirtaa kartoonka. Gabadhu waxay ku jirtaa kartoonka.
The girl is in the box. The girl is in the box. The girl is in the box. In maxaan dhahnay gudaha. Among waa kamid. Among waa kamid. Among haddii lagu dhaho among the boys wiilasha kuwa kamid ama the girl is among the boxes. Gabarta kartoomada ayay kamid tahay. Gabadha ama gabarta kartoomada ayay kamid tahay. The girl is among the boxes. The girl is among the boxes. Gabarta boxyada ayay kamid tahay. Hortiisa ama hortooda waa in front of. In front of. In front of waa hortiisa ama hortooda. Waxay hor joogtaa kartoomada hortooda. Waxay hor joogtaa kartoomada hortooda. She is in front of the boxes. She is in front of the boxes. Maxaan dhahnay casharkeena maanta maxaa waaye prepositions of place. Prepositions of place. Meeleye. In front of waa hortooda ama hortiisa. Outside banaanka. Out of waa ka banaan ama banaanka irida hore ama afkeeda hore kasoo baxnaanshaha ama banaanka la iska dhawixi hataa. Gabar qurux badan ayaa rabto inay kartoonka banaankiisa imaado. Banaankiisa intay imaato ayay rabtaa. Gabar qurux badan lovely, beautiful, pretty waa dhihi kartaa ayaan dhahay. A pretty girl wants to come out of the box. Gabar qurux badan ayaa rabto inay boxka banaankiisa imaado ama imaato. Through dhexmarid. Dhexmarid waa through the box ama through the door. Irida ayaan soo dhexmaray ama irida ayay soo dhexmartay. Kartoonka ayay dhexmaraysaa. Waqti xaadirkan la taagan yahay ayaan ka hadlaynaa is walking. Cashirkan fadlan cashirkan kii ka horeeyay ayaan kusoo baranay. Haddaa luqada ingiriiska rabtid intaad baratid cashirkeena hore dib ugu noqo. She is walking through the box. She is walking through the box. On waa dusha. Dusha ama dhabarka ama meesha hore waxay dhahdidba. Gabadha waxay saaran tahay kartoonka dushiisa. Gabarta waxay saaran tahay kartoonka dushiisa. The girl is on the box. The girl is on the box. Gabadha waxay saaran tahay kartoonka dushiisa. The girl is on the box. Meesha meeleye ayaan maanta baranaynaa sidaan hore usoo sheegnay. Meesha marka lagu dhaho waa meesha waqtigaas ay qofka jooga ama waxa ay yaalan ayaa laga hadlayaa. At ayaa na English ku dhihi. Waxay ii sheegtay inay ku sugan tahay meesha kartoomada. She told me she is at the boxes. She told me she is at the boxes. Waxay ii sheegtay inay meesha kartoomada taagan tahay. Agagaar ama dhawid ama dhawaasho. Near. Fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalkan subscribe noo saaro. Cashiradan nala dhameyso. Nagu xirnaaw gambaleelkana furo. Waxay u dhowdahay kartoomada. Waxay u dhowdahay kartoomada. She is near the boxes. Box waa markuu hal kartoon yahay. Markay badan yihiinna es ayaad ku dari. Insha Allah asigana cashirkaasna mar kale ayaan baran doonaa. Above waa ka kore ama wax kale ka koreeyaan. Above ka kor ama ka kore. Gabar buufin wadato ayaa kartoonka ka koreyso ama korkiisa taagan. Adiga korkiisa taagan ma dhihi kartid ayaa ka koreyso. A girl with the balloon is above the box.
A girl with the balloon is above the box. Laba dhex ama dhexdooda, between ayaa la dhahaa. Laba dhex ama dhexdooda, between. A ayaa u dhexeeyo dambiisha iyo kubadda. A ayaa u dhexeeyo dambiisha iyo kubadda. There's a dog between the basket and the ball. There is a dog. A ayaa dog la dhahaa. Between waa laba dhexda ama dhexdooda. Basketna waa dambiil. Kubadna waa ball. casharkeenan halkaas ayuu inoogu egyahay. Fadlan subscribe-ka naga hilmaamin. Buug iyo qalinkaadana wado mar walbaba.